الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، walaalyaal sidii insha allahu tacaala aan ku ballansanayn waxaynu ku jirnaa bishii barakaysneeda ramadaan ee barakaadka iyo fawaa'idka aadka u fara badan lahayd. insha allahu tacaala waxaynu ka faa'iidaysan doonaa xadiiskeenii iyo kitaabkeenii matnul arbaciinu nawowi iyo xadiidkii koowaad. insha allahu tacaala ka faa'iidaysi wacan in lagu dhaqmo insha allahu tacaala oo la xifdiyo ayaan rajaynaynaa ilaahay idankii biwajhi illaahi alkariim. sidoo kalena insha allahu tacaala in khayrka loo dadaalo oo lagu dadaalo insha allahu tacaala. xadiidkan waa xadiis saxiixa oo ku sugan bukhaari iyo muslim labadaba. marka waxaa warinaya can amiiru lmu'miniin abi xabsa cumar bin khadaab radia allahu canhu qaala samictu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yaquul inama alacmaalu binniyaat wainama likulli ri'in maa nawa faman kanat hijratuhu ila allahi warasuulihi fahijratuhu ila allahi warasuulihi waman kanat hijratuhu lidunyaa يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث كان والله وحورنا عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب الله كرع النقضي قال وحولي سمعت وحن مغلي رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم نبتقلين أحدث تشي ساعتين يقول له إنما الأعمال بالنيات عمل والبول قوانا يوان يدا وإنما لكل الرئ ما نوى قفور بنوحه مرتين يستأيو ليه. فمن كانت هجرته قفكي أين قتدو يعني نيديسو يدونديسو إلى الله ورسوله إلهي رسول كيسا فهجرته إلى الله ورسوله دونتان كيسو حيا هانيسا إلهي رسول كيسا. ومن كانت قفكي أين قتد هجرته دونتان كيسو للدنيا الدنيا أو يصيبها إنو لكم امرأة ينكحها إنو هويني قوسدو فهجرته إلى ما هاجر إليه وحي أولي يستأيو إليه. ومعنيه ذي هو على قفك إلهي سبحانه وتعالى iyo rasuulkiisa niyadiisa u fura ee qalbiga geliya ilaahay rasuulkiisa inuu la kulmi doono khayrku ka rajaynaya inuu heli doono. sidoo kale qofka niyadda geliya adduunyo ama wixii uu doonayay ama inuu guursado haweeney inuu heli doono wixii uu niyeystay. marka waxaan ka qaadanaynaa walaal xadiiskan camal walboo la qabanaya inay niyaddu ka horeyso, sidaa awgeed in niyadda la hagaajiyo insha allahu tacaala. intaan xadiiskan xadiis lamida ku kulmayno oo walaalkiina inta kaga tegaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakatu.